kulankan oo ay soo qabanqaabiyeen qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed isla markaana lagu qabtay maanta magaalada Muqdisho waxaa ka qayb galay dadweyne aad u tiro badan. ujeedka kulanka waxa uu ahaa sidii markaasi dib loogu xusuusan lahaa imaamka weyn ee loo yaqaan al-Imaam Shaafici kaas oo markaasi kaalin muuqata ka qaatay madaahibta islaamka. kulanka waxaa khudbado ka jeediyey mashaayikh kala duwan oo loogu talagalay inay la hadlaan dhammaan dadweynihii kulanka maanta ka soo qayb galay. waxaa ka mid ahaa Sheekh Cabdifataax Maxamed Faarax iyo waliba sidoo kale Sheekh Maxamed Daawud Maxamed iyo Sheekh Abuukar Xasan Maalin kuwaas oo dhammaantood wax badan ka sheegay taariikhdii iyo marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray imaamka weyn ee loo yaqaan al-Imaam Shaafici. haddaba waa kuwan culimada oo si weyn uga hadlay marxaladihii kala duwanaa ee imaamka, aqoontiisa, sida uu u asaasay madhabkiisa islaamka ee loo yaqaano al-Shaafici iyo waliba sidoo kale sida ay u ammaaneen culimada islaamka kaalinta uu ku lahaa aasaaska madhabka islaamiga ee loo yaqaano al-Shaafici. waxay u baahan tahay buu leeyahay Imaam Shaafici oo kutubtiisa oo uu fiiriyo xadiidkan imaamku inuu arkay inuusan arkin horta inuu ka war helo laana xadiidkan imaamku hadduu arkay wixii uga leexday imaamku oo ta'wiil ah adiga ka qarsoon bal culimada ragaaba ku tagay hadda qaar baa yiraahdeen mas'alada midalan afṭar al-haajim oo kale ta'amal wal mahjum rag baa isku day inay yiraahdaan waa madhab al-Shaafici oo xadiidkani waa saxiix oo waa sugnaado kada markaas loo soo saaray Imaam Shaafici dhahaya inuu xadiidku mansuuq yahay aad ya aadu Imaam Shaafici oo u jeclaa waxa uu jeclaa jiray inuu mar walba uu la jiro Zacfaraani oo kamida talaamiida Imaam Shaafici oo la balama jira waxa uu dhihi jiray Imaam Shaafici iyo khaliiho lala jirin hadad aragta ii soo sheeg waxa uu rabaa inuu asagu agtago cilmiga ka dhuuqo la jiro aad ya aad oo uga faa'iideysto. Imaam Ahmad marka sida uu Imaam Shaafici oo ugu tixnaa amba oo uga faa'iideystay amba oo xirowgiisi u noqday si mathal lama ahayn waxa uu ku jiraa afarta qofood ee madhabka qadiimka ah ee Imaam Shaafici Ciraaq oo ku alifay afarta qofood oo ka warisay uu ku jiraa Imaam Ahmad bin Hanbal marka waa xirow la hubo oo Imaam Shaafici kiisa ah waxa uu dhihi jiray qalin iyo inqaas ahad taabtay ma jiro ilaa luquntiisa Imaam Shaafici wuxuu ku leeyahay galad. casharada markaanu ka qaadanayno jalsada loo caqiiday al-Imaam Shaafici waxa kamida in Imaam Shaafici ilaahay uu jeclaaday ilaahayna uu doortay astaana ay u tahay 1000 sano ka badan in Imaam Shaafici cilmigiisa uu sii fidayo maxabadii iyo cizigii iyo karaamadii iyo jacaylkii ay ummadda u qabeenna 1000 sano ka badan uu sii socdo taasina waxay astaan u tahay qabuulka ilaahay aqbalay Imaam Shaafici isaga cilmigiisiiba in ilaahay uu aqbalay ay astaan iyo daliil u tahay. waxa halka ka qaadanaynaa marka qof walba inaga naga mid ah umrigiisa inta ka dhiman ha ku dadaalo barashada diinta iyo fidinteeda yaana diinta barashadeeda iyo fidinteeda waa mid ka dhigaysa markaad geeriyootay ka bacdi 1000 sano ka bacdi inaad sii noolaato ilaa qiyaam saaca adigoo qabrigaaga ku jira macna ahaan iyo sharaftaada iyo taariikhdaadu inay soo noolaato. ugu dambeyntii kulankan maanta lagu xasuusanayay imaamka weyn ee loo yaqaano al-Shaafici ee lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaa qabanqaabadiisa iska lahaa jamaacatu Sheekh Daawud taas oo uu hogaamiye ka yahay Sheekh Cusmaan Sheekh Cumar oo loo yaqaano Sheekh Cusmaan Xidig kana mid ah culimada ugu waaweyn magaalada Muqdisho. sheekha ayaa ugu dambeyntii waxa uu u duceeyay ka qaybgalayaashii kulanka maanta. adduun qofna ku waarimayse tawxiidka Allah nagu khatimo toobada Allah nagu duwo ummadda Nabi Muhammad meelay joogtaba naasri Allah siiyo ducadeena Allah aqbalo dambigeena Allah dhaafo bishii Ramadaan waa noo soo dhowdahay inta soonta oo kulli baanta oo naxariis badan oo Rabbi hesha oo luquntooda naarta laga xureeyo Allah nagu daro Allah ajiibo Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cabdifataax Xasan Kalgacal
warbaahinta dalsan muqdisho.